maamul goboleedyada dhisan inkastoo aanan ka mid ahayn haddana maamulkii iyo taladii iyo gobolladii hiiraan la yidhaahdo dadkii hiiraan bay u taallaa ma ahan dad xamar jooga dad gobol kala jooga inay ayagu geegii mariidaan u dhashay hiiraan loo soo magacaawdaa ma aha boqorro uu leeyahay nabadoonno uu leeyahay indheergarad buu leeyahay mutacallimiin buu leeyahay hiiraan dadkiisa waa la yaqaanaa aqoontiina meesha bay joogtaa aqalka sare iyo aqalka hooseba hiiraan waxaan ka imaanin oon boqorradoodu saxiixin oo nabadoonnadoodii indheergaradkooda dhexdooda aan taladooda ka imaanin ma matalaan reer hiiraan guddigaasoo annagana ma matalo 22 kaaho iyo midka kale 130 kaa la sheegaa walaxan hiiraan ka imaan oo dan hiiraan aan ahayn in annagana loo keeno ma rabno inaan anagu ninkan ceelka gashanayna anigu geysanaan rabnaa hanala ka joojiyo faragelinta iyo waxa la laabana warsaqisaqa qoftii ilaahay sii rabay waa helaysaa laakiin joorfalka joogtada oo maalin walba lana ku haayo inaan ka dhaafan jeclaalay haddii nala ka dhaafi waa dad jiro tashakaraanahay oo adduunkana waxaanu sheegaynaa beesha caalamka waxaanu sheegaynaa qof kasta oo shirkaan quseeyo waxaanu sheegaynaa waxa meeshaas lagu dhoodhoobaa inay si reer hiiraan ay saqosayn maanta shirkaan aan isugu nimid wuxuu ku saabsan yahay qaadacaad inaan ka hor tagno beenta la alkuudiyey lana rabo in la dhaqan geliyo caalamka waxaan u sheegaynaa dalku wuxuu ku sugan yahay khatar dagaal buuna salka u saaran yahay waxaana sababaya gruubka ismagacaabay oo idinka soo dhisteen haddaad tihiin caalamka This is my accusation against the United Nations Security Council. dacwaddan waxay ku saabsan tahay UN-ka iyo nimanka soo dhisay sharciga 75 ay ku fadhiyaan gruubka Xamar. Xasan Sheekh Maxamuud nin hadda xilkii kursigii ku fadhiyo oo haddana inuu ku soo laabto rabo oo duurka dad ka soo aruursanaa waa talaabta koobaad oo qaaday oo xabin hore oo shirka jaraayadu qabtay oo saxaafadda ku soo saaray waa ka soo horjeednaa anagu 22 qofood ee guddiga doorashooyinka oo ku magacaabay wax naga qoseeyaa ma jiraan wax nagu matalaa ma jiraan haddaan reer hiiraan nahay dadkaan u dirsan lahayn oo Soomaaliya wax noola qaybsan lahay ama aan hiiraan matali lahay waxaan ka rabnaa inay hiiraan ka soo baxaan Xasan Sheekh Maxamuud raalli ahaado saan ku soo noqdaan ka talinaya dad lagu maamulo lagu mana hogaamiyo laha dhacaya oo dawladda federaalku ay sameynayso oo awalna aan ogayn hagardaamada iyo xumaanta ay gobolka hiiraan dawladda federaalku u hayso markaan ogayn haddana ay gacan saddexaad ay ku sii diraan marka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka igad inta Soomaaliya wax la qabata waxaan u sheegaynaa gobolada hiiraan shabeelle banaadir wax maamul goboleedaha u dhisan ma laha in marka dawladda federaalku ayadu intaas siday doonto u isticmaasho xaq uma laha dastuur baa qoran dastuurka qoranna way ku jabiyeen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya urur goboleedka IGAD dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha daneeya arrimaha Soomaaliya odayaasha dhaqanka qodobka koobaad odayaasha dhaqanka waxgaradka ururada bulshada rayidka ee gobolada Hiiraan waxay si toos ah uga soo horjeedaan qaabka ay dawladda federaalku u taabagelinayso soo xulitaanka xildhibaanada labada aqal ee gobolada Hiiraan matalaya kaasoo ay u arkaan in ay ka soo horjeedo shuruucda dalka iyo heshiisyadii lagu gaaray madasha wada tashiga qaran ee doorashooyinka 2016